General Saalax Yacquub oo ah banduulaha qaybta 27aad ee ciidanka xoogga dalka oo saxaafadda kula hadlayay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa sheegay in laba ka tirsan Al-Shabaab ay ku dileen dagaal saaki ka dhacay deegaanka Beetaale ee duleedka magaalada Beledweyne. Sidoo kale waxa uu sheegay in ay hub kaga soo furteen dagaalkaas isagoo sii hadlaya banduulaha qaybta 27aad ee ciidanka xoogga dalka ayuu sheegay in dhanka ciidamada dowladda Soomaaliya ay kaga dhaawacmeen dagaalkii saaki ka dhacay deegaanka Beetaale ee duleedka magaalada Beledweyne 3 askari. Bismillahir Rahmanir Rahiim. Shirkan jaraa'idan maanta isugu nimid waxa uu ku saabsan yahay dagaal maanta iyo xalay ka dhacay deegaan hoos yimaado gobolka Hiiraan ee degmada Beledweyne. Sidaad ka warqabtaan xalay waxaa dagaal culus ka dhacay degmada la yiraahdo Ceel Cali oo dhinaca qoraxsan Beledweyne kaga toosan una jirto muxuu ahay 65 kiiloomitir. ciidan macaawisleeye oo deegaanadaas ah ayaa xalay waxay weerar ku qaadeen Al-Shabaab fadhiyo ay ku lahaayeen degmada Ceel Cali halkaas oo ay ku dileen nin amiir ah oo ninka deegaankaasi ugu sareeyay ahaa oo nin hore meeshaasi lagu dilay oo deegaankaasi madax ka ah lagu dilay lagu bedelay markiisii horena nabadoon shabaabka ay doorteen ahaa iyo staff uu watay oo ka koobnaa 3 nin iyo isaga halkaas ay ku dhinteen dagaalkaas xalay oo dhacay dagaalka markuu dhacay oo xogta aan helnay kadib gobolka iyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee qaybta 27aad guutada halkaan ka degan ayaa waxay gashay diyaar garow si nimanka macaawisleyda oo guulahaasi gaaray aanay dhibaato u geysan Al-Shabaabka oo loo difaaco naftooda loo soo mata bixiyo. xalay habeennimaan halka ka guureynay dhulka Ceel Cali iyo u dhaxeeyo Beledweyne waa dhul buuraley ah oo buuro aad iyo aad dhinaca isku wada hayo buuro dheer oo togog waaweyn gudaha kule ay ku yeelaan. ciidankii halka ka gurmaday shabaabkii ay dhax u galeen waa dareemayeen in gurmadu u imaanayo. halka waxa ka dhacay dagaal culus nasiib wanaag dagaalka halkaas ka dhacay ka ciidan ahaan annaga 3 nin oo dhaawac ah ayaa khasaare naga soo gaaray wax naga dhintay ma laha ilaahay mahadi ha ka gaarto dagaalkina guul weyn aan ka keenay sida aad hadda arkayseen waxaan ka furannay 3 qori oo AK47 ah iyo qori 7 ah hal nin meydkiisu waa keenay 3 kaleentana dhulka lagu dagaalamay wuxuu ahaa dhul dhagax ah dhashiikii iyo 7kii dhacay waa go'een hilbahoodii iyo dhagaxii isku darmay wax qaadma annagana dagaalan ku jirnay suurtagalna ma noqon in hilbaan soo uruurin oo soo qaadno ninkaas aan ka soo qaadnay 3 kaleentana hilbahooda waa go'een oo muxuu ahay yani wax cad haysta ma lahayn meeshaan kaga soo tagnay hilbahooda ninkaan xoogaa haystan waa soo qaadnay waa keenay halkaas ciidanka wuxuu ka keenay guul weyn. waxaad ka warqabtaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed mar walba inuu u heelan yahay iyo dhammaan ciidamada qalabka sida booliiska iyo nabad sugidaba mar walba inay u heelan yihiin difaacidda shacabka ummadda Soomaaliyeed ee gumaysiga lagu hayo mana ugu dulqaadan doono in dibdaba loo gumaysto nin jeedniya ka yimid mid Afghanistan ka yimid mid golo khaniis ka yimid
midkoodna inuu dadkayna baado xoolahayna ku naaxo cid aan ugu dulqaadanayno ma laha hadda waxay laga bilaabo horeyaa loo dhaqaaqaa la fadhin maayo waxaan kaalmo weyn siin doonnaa ciidamada macaawisleyda ah ee dagaalka ba'an kula jiro nimanka nabaddiidka si kastaba haatee dagaalkan ayaa ku soo aadaya iyadoo xalay koox ka tirsan macaawisleyda ay weerar ku qaadeen degmada ceel cali cabdiwaaxid maxamed aadan wararka dalka News TV magaalada Beledweyne.